بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وانا دي سلامي سيدات كهلي كرتا جامعة بلاشا أديكو قريقا جوغا موضوعني waxa uu kamid yahay mowduucyada ugu muhiimsan ee aan ku soo gudbin doono barnaamijkeena sirta waxbarashada mowduucana maanta aynu soo qaadayno waxa weeyaan qofku isagoo gurigiisa jooga sida uu shahaado uga qaadan karo jaamacadaha waaweyn ee dunida ku yaala intaynaan mowduucana bilaabin waxaynu isla eegaynaa faa'iidooyinka ku jira inaad wax ka barato jaamacadahan qodobka koobaad waa bilaash taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay waxa aad waxbarashada dhamaysanaysaa adiguna hal senti ka bixin waliba waxa aad maskaxda ku haysaa adigoo waliba bilaash ku dhiganaya jaamacadan haddana waxa aad helaysaa shahaado caalamiya oo aad ka qaadanayso jaamacadaha ugu qodobka labaad waa xorriyadda waxa aad haysataa xorriyad dhamaystiran oo aad wax ku baran karto taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay waqtiga aad wax baranayso adiga ayaa go'aaminaya waqtiga aad freega tahay ee aan shaqo kale ku oolin ayaad wax baranaysaa qodobka saddexaad ugu dambeeya waxay ardayga ka dhigaysaa qof qaadi kara mas'uuliyadda naftiisa sida aynu la wada socono jaamacadaha caadiga marka aynu wax ka baranno waxa laga yaabaa ardayga inay xagga dambe ka riixayaan waalidkii ama qofkii jaamacadda ka bixinayay laakiin markan adiga ayay ka soo go'day inaad jaamacadda dhigato sida awgeed adiga ayaa naftaada ka mas'uula inaad waxbarashadii sii wadato iyo inaad dhexda kaga hadho haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay sidee bay jaamacadaha caalamiga ay u bixiyaan waxbarasho bilaasha jaamacad walba caalami waxa ay bixisaa scholarship free oo lagu talagalay ardayda dunida ku nool in ay ka faa'iideystaan sida awgeed waxa jira website-yada qaarkood oo ay jaamacaduhu ku soo rigaan koorasyada halkaas markaa wax laga bartaa kadibna website-ka dhexdiisa ayaa lagu soo dirayaa shahaadada waxa laga yaabaa inaad isweydiiso ma laga yaabaa shahaadadan in laga koobiyeysto ama laga xado su'aasha jawaabteedu waa maya waa shahaado waliba waxa ay wadataa serial number aan la xadi karin haddaba waxaynu si toos ah u gudagali doonaa website-yada ay jaamacaduhu ku soo ridaan koorasyada website-ka koobaad waxa magaciisa loo yaqaanaa alison.com website-kan waxa loo yaqaanaa waa god dahaba oo ku jira internetka website-kan waxa arday ka diiwaan gashan oo wax ka barta in ka badan 8 milyan oo arday waxaana shahaado ka qaatay oo ka qalin jabiyay in ka badan 1 milyan oo arday oo ka soo kala jeeda in ka badan 150 dawladood oo dunida ka tirsan oo ay ka mid tahay Soomaaliya website-kan waxa ku jira in ka badan 750 course oo isku jira maadooyinka kala duwan ee ardaydu bartaan sida caafimaadka businesska engineeringka IT-da iyo maadooyinka kala duwan ee ardaydu ay bartaan waxyaabaha kale website-kan ka faa'iidi doonto waxa kamid ah waxa uu bixiyaa shahaadada darajada koobaad ee jaamacadda ee loo yaqaano shahaadada dibloomada waxaana uu ku bixiyaa 20 saacadood oo kaliya ka waran imisa saacadood baa inaga luma toddobaadkii website-kani kaliya waxa shahaado diblooma aad kaga qaadan kartaa 20 saacadood website-ka labaad waxa loo yaqaanaa Coursera website iskugu yimaadeen dhammaan jaamacadaha waaweyn ee dunida ku yaala waxyaabahan ku xasuusto website-ka waxa kamid ah markaan caafimaadka baran jiray waxa aan ka qaatay shahaado caalami ah oo ay bixinaysay jaamacadda loo yaqaano Penn State University oo kamid ah shanta jaamacadood ee ugu waaweyn dunida shahaadadaasi oo ahayd Introduction to Dental Medicine sida awgeed ardayga dadaalaya waxa aan ugu baaqayaa inuu wax ka barto website-ka loo yaqaano Coursera waxbarashaduna waa free shahaadaduna waa free labaduba waa free inkastoo imika muddadii u dambeysay ay ka dhigeen shahaadada lacag haddana laakiinse ardayga aan waxba haysan choice ah waxa u furan in shahaadada uu free ku qaato website-ka saddexaad waxa loo yaqaanaa Khan Academy waxa aasaasay jilaaga caanka ah ee Bollywood ee loo yaqaano Salman Khan website-kan waxa la aasaasay 2006 waxaana koorsada website-kan ku jira ay ka badan yihiin 3600 oo lecture website-kan waxa waxbarashada ku bixiya dhammaan jaamacadaha dunida ee waaweyn sida jaamacadda Harvard iyo jaamacadda MIT sanadku markii uu ahaa 2010kii shirkadda caanka ee loo yaqaano Microsoft waxa ay shahaado guddoonsiisay website iyadoo lagu amaanay tayada waxbarasho ee website-kani uu bixiyo isla 2010kiina shirkadda Google waxa ay ku maalgelisay website-kan $2 milyan oo dollar website-kan waxa uu ku wanaagsan arday kasta oo dadaalaya kumana xidhna dawladda aad joogto da'daadu inta ay jirto iyo inaad hanti aad haysato iyo in kale kaliya waxa laga baahan yahay inaad soo qaato computerkaaga iyo internetku inuu available ku yahay website-ka afraad waxa loo yaqaanaa waa EDX
waxa wada aasaasay labada jaamacadood ee adduunyada ugu sarreeya oo kala ah jaamacadda Harvard iyo jaamacadda kale loo yaqaano MIT sanadku markii uu ahaa 2012 dhammaan shahaadooyinka uu bixiyo website-kani waxa ay ka yimaadaan labada jaamacadood gaar ahaan jaamacadda Harvard oo culum fara badan ku soo gudbisa website-kan maalinkii la aasaasay ilaa maanta labada jaamacadood sanad waliba waxa ay website-kan ku maalgeliyaan in ka badan 60 milyan oo dollarka Mareykanka waxa loogu talagalay website-kan in ay shahaadada Harvard iyo shahaadada MIT ay ka qaataan ardayda uu chance u saamixi waayay in ay labada jaamacadood ay wax ka soo bartaan website-ka shanaad waxa magaciisa loo yaqaanaa waa Rawaaq waxa uu gaar u yahay dadka wax ku barta luqadda Carabiga waa website-kii ugu horeeyay ee Carabiga ee laga aasaasay dawladaha Carabta website-ka Rawaaq waxa uu waxbarashada siinaya arday kasta oo dadaalaya oo diyaar u ah in uu wax barto website-ka Rawaaq waa mid kamid ah website-yada anigu shakhsiyan aan wax ka soo bartay shahaadooyinka ugu muhiimsanaa ka qaatayna waxa kamid ahaa shahaadada muqaddimatun ila al-lughati as-siiniyya ama waxa loo yaqaan introduction to Chinese language oo aanu baranay ama aanu dhiganay dabayaaqadii sanadkii 2017 ilaa ma iyo bilowgii sanadkii 2018 waxa ay ka koobnayd 87 lecture website-ka lixaad waxa loo yaqaanaa idraak waa sidii Rawaaq oo kale waxa uu ku baxaa luqadda Carabiga idraak waa mashruuc khayriya waxaana ku tabarucday boqorada wadankaasi Urdun ee loo yaqaano al-Malika Rania waa xaaska boqorka wadanka Urdun website-kan isagana waa website muhiim ah oo ay wax ka bartaan dadka ku hadla luqadda Carabiga website-kan waxa wax ku bixiya jaamacadaha waaweyn oo ugu horeyso jaamacadda Harvard waxaana uu bahwadaag leeyahay website-ka aynu ka soo hadalay ee loo yaqaanay EdX halka waxaan maanta idinku soo gudbiyay 6 website ee ugu caansan ee ay jaamacaduhu soo galiyaan koorasyada ay bilaashka ku bixinayaan maanta dunida waa laga tagay waqtigii ardaygu marka uu waxbarashadu ku adkaato uu gali lahaa iskuul labaad ama uu qabsan lahaa macallin wax u dhiga maanta waxbarashadii waxa ay kugu timiday gurigaaga iyadoo walibana bilaa lacaga waqtiga aad haleeshana aad wax dhiganayso waxa aan idin rajaynayaa waxbarashada inaad guul weyn ka soo hoyn doontaan salaam calaykum bibali wahyu su'al لو أن لعمري ميزانا ما المكيال